qaar ka mid ah cuqaasha waxgaradka xildhibaanada iyo weliba salaadiinta mid ka mid ah beelaha ay colaaddu ku dhex martay deegaanka Fadhigaab oo ka mid ah deegaanada gobolkaasi Sanaag ayaa baaq nabadgelyo waxa u dileen beelaha ay colaaddu dhex martay iyagoona sidoo kale ammaanay xukuumadda Somaliland siday u wado dhexdhexaadinta labadaasi beelood waa kuwan salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka oo baaq nabadgelyo u diray beesha hadana xafaahna oo nabadgelyo hayno diyaar nahay qodobka labaad waxaanu diyaar u nahay xaaja qaadasho baaq nabadgelyo iyo garbax baanu maanta u diyaarnahay beesha Axmed Faarax wixii khalad ee loo tirinayo ee ku cadaada kalsooni bay u haysaa ay ku bixiso ku garowsato weliba khaladka ay iyadu tiriso kalsooni ay ku cafiso cafis ku bixiso ayayba u haysaa nabadgelyadu waa tiirarka ugu waaweyn ee bulshada weeyaan waxaan u mahadnaqaynaa xukuumaddeeda jamhuuriyadda Somaliland ee uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa wasiirada jooga degmada Ceelaf Weyn ee uu hogaaminayo Maxamed Kaahin wasiirka daakhiliga Maxamed Kaahin iyo la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cali Waran Cadde baanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa annagoo beesha Axmed Faarax ee halkan joogta iyo ka naga maqan ama miyaha jooga ama magaalo iyo meel kasto qof Axmed Faarax inaga joogo waxaan u sheegaynaa beelaha walaalaha iyaga ee shaydaanku kaayo isku diray inaanu shaydaankii naaray a'uudu billaahi minash shaydaanir rajiim waxaanu hayno nabad waxaanu ku soo noqonay saaxadii nabadda waanu ogolahay inaanu markaa waxa weeye nabad qaadano waxaanu xaajoonno walaalaha iyo la xaajoonno oo shaydaanka markaa uu naga baxay ku maqan nabadgelyo darro ugu maqan oo beesha Axmed Faaraxa oo aanu ognahay ma jiro waxaanuna metelaynaa intayadani Axmed Faarax baanu metelaynaa haddaanu ognahay cid Axmed Faarax oo nabadgelyo darro ku maqan oo beelaha Sacad Yoonis ugu maqan maanu meteleenoo maanu hadaleen haddaanu nahay beelweynta Axmed Faarax ee maanta halkan joogta waxaanu nabad ugu baaqaynaa beelaha iyaga aan walaalaanahay ee Sacad Yoonis dhamaantoodba beelahaasoo aanu walaalo rasmi ah nahay cid iska kaaya xigtaa aanay jirin wadanku naga dhaxeeyo dalku naga dhaxeeyo dhiigga naga qubanayaana naga dhaxeeyo oo isku dhiigaanu nahay inan iyo hooyadii inaan hebartaan nahay walaalahay waxaanu leenahay nabad baanu idinku baaqaynaa idinku maqanahay baaqan nabadgelyo waan diraynaa degmada Ceelaf Weyn baan ka diraynaa haddaanu beesha Axmed Faarax nahay waanu sheeganaynaa hadday xukuumad tahay iyo hadday Sacad Yoonis kan istilay ay tahay xukuumaduna roolkeeda ka qaadanaysa wixii nabadgeliyo cid kastaba haatee wixii nabadgeliyo xuma ka shaqeynaya annaga nabadgeliyo darro nagu metelaan waxaanu nabadda ugu baaqaynaa beesha Sacad Yoonis waxaanu leenahay nabad baanu haynaa iyo dawbax iyo wax kala sheegasho waxaanu leenahay shakhsi ha noqoto reer naga mid oo reeraha ka mid ah ha noqoto ciddii nabadgeliyo darro samaysa iyada qabto iyadana waa inaad xukuumaddu ka shaqaysaa haddaanu nahay beelweynta Axmed Faarax nabad baanu ugu baaqaynaa beelaha Sacad Yoonis ee walaalaha iyaga dhibkuna kala gaaray in badanna dhibku nagu soo noqnoqday ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa dhibka inaanu dib noogu keenin maanta haddaanu ka heshiino oo dhammaysano iyagana waxaanu ka codsanaynaa inay sidaa nala qaataan wixii hore ee de ragga hore ay yiraahdeen beelweynta Axmed Faarax ay nabadda ay ku baaqday waa la qabnaa taa ku noqon maayo anigu laba qodob oo quraan ka hadlaya labada qodob waxa weeyaan nimanka la yiraahdo qurba joogga ee fidmawalayaasha qaranka Somaliland iyo ummadda beelahaba ku noqday waxaan ugu baaqaynaa war ilmaade rayaal iyo tolow iyo walaalayaalow
ka daaya dadka fidnada taasi waa taa tan labaadna waxa weeye reerahan dariska nala ahee ama biciide ama haddii eebba xugmaayo habar jeclo ee hareeraha naga xiga ee markii aanu axmed faarax yarahe liicay ma dhicina liicay ee rag halkaa u baxay ku baaqay haddii eebba xugmaayo waa taageersannahay reerkaa walaalayaal waxqabataa u arki mayno dumin baannu arkaynaa qaranka somalilan iyo reerkaba lagu wado oo lagu majaxaaminayaannu aragnaa waxaa kaloo jira siyaasi saaqiday hargeysuu soo fadhiya xukuumadduna waa og tahay ragga waxa wadana nabadgeliyo waxaanu ugu baaqannaa beelihii waxna dhex mareen iyo shacabka reer somalilanba dowladdana waxaanu u sheegaynaa laga bilaabo saacaddaa inaannu xaajood reerka axmed faarax la yidhaahdaa wada xaajood iyo garqaadasho inuu diyaar u yahay waanu joogno mantaqadda ceelaf weyn marka hore beelaha walaalaha ayaa ahay sacad yuunis darays iyo jibriil xasan iyo baashi axmed faarax wixii inaga geeriyooday labadeena dhinacba waxaanu u diraynaa tacsiyad ilaahay jannada ka waraabiya inagana sabir ma allah inaga sii taasi waa intaa waxaanu kaloo raacinaynaa beeshu wax isa qaatay axmed faarax waxaanu ii soo gudbinaynaa kuwaanu isku dhacnay iyo kuwa kale ee mantaqadda ku noolba baaq nabadgelyo